habaarka hooyo waxaad tahay saxaabiyad waxa uu heshataa oo ka heshaa sheekooyinka iyo taariikhaha ummadihii hore bal ka waran haddii sheekooyinkaas uu kaga sheekeeyo nebigaaga iyo xabiibkaaga Muxammad sallallahu alayhi wasallam waa ku kana adigoo ballan leh nebigaaga Muxammad sallallahu alayhi wasallam si uu kaga sheekeeyo taariikhahaas iyo sheekooyinkaas hore nebiga sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu ku yiri markaas Jurayj wuxuu ahaa caabid wuxuu samaystay mawlac yar maalin maalmaha ka mid ah ayaa isaga ugu tukanayo mawlaciisa yar ayaa waxa u timid hooyadiis way u wacday markaas Jurayj maadaama uu tukanayay naftiisa ayuu wuxuu ku yiri yaa rabbi hooyo mise salaada kadibna wuxuu iska watay salaadiisa hooyadiina way baxday markaas maalintii labaad ayay haddana u timid hooyadiis isaga oo tukanayo markaas ayuu u wacday isagana sidii markii hore oo kale ayuu wuxuu iska watay salaadiisa hooyadii ayaa waxay tiri ilaahu ha dilin isagoo aan arkin dumarka xun wejiyadooda reer bani Israa'iil ayaa markaas waxay ka sheekaysteen arrinka Jurayj iyo cibaadadiisa badan naag ka mid ah dumarka zinaysto oo aad u qurux badnayd ayaa waxay tiri markaas haddii aad rabtaan waa fidnayn karaa markaasna waxay u timid Jurayj nafteeda ayay u bandhigtay balse xaggeeda maba uusan fiirinin markaasna waxay isku bandhigtay nin xoolo jire ahaa oo seexan jiray mawlaca Jurayj isagana waa uu ka zinaystay markaas sidaasna waxay ku qaaday uur markay dhashay ayaa waxay tiri cunugan waxay ka dhalay Jurayj dadweynihii ayaa waxay u yimaadeen Jurayj waxayna ka dumiyeen mawlaciisa wuxuu yiri maxaa idinku dhacay iyagana waxay dhaheen waxaa ka zinaysatay naagtaan adiga ayayna kugu dhashay wuxuu yiri aaway cunugii waxaa loo keenay cunuga markaasna wuxuu yiri iga leexda aan tukaday markii uu tukaday ayuu cunugii yaraa caloosha ka riixay wuxuuna ku yiri waa kuma aabaha cunugii yaraa ayaa wuxuu yiri aabahay waa xoolo jiraha dadkii ayaa markaas cafis weydiistay Jurayj waxayna ku yiraahdeen waxaan ku dhisaynaa mawlac dahab ah isaguna wuxuu yiri maya ee sidiisii hore igu celiyay ee dhoobada ahayd saxaabiyada quruxdu waa nimco u baahan in la ilaaliyo ee ha u isticmaalin inaad ku fitnayso addoommada arrinkaas waa waxa ay sameeyaan dumarka zaaniyaadka ah ee ma ahan waxay sameeyaan dumarka wanaagsan ee dhowrsoon dumarnimada iyo codka jilcan waa waxay dumarka ku qaataan qalbiyada ragga marka hore naftaada ilaali marka xigtana dadka ilaali dumarnimadaada marka aad ku soo bandhigto meel aan lagu talagelin quruxdaada iyo wanaagaagana aad tusto qof aan xaq u lahayn markaas waxaa noqonaysaa mid qof walba uu damco qof walbana wuxuu u malayn doonaa in sahal lagugu heli karo sharaftaada wax la mid ah ma lahan albaabkaagana ha furin qof walba si marka uu ku soo dhaco tuug aadan u qaylinin dhibka oo laga hortago inta uusan dhicin ka hor ayaa ka wanaagsan in la daaweeyo marka uu dhaco kadib wixii risqigaaga ah ee aad leedahay adiga waa helaysaa shaki la'aan risqiga waxaa bixiyo Allah ee ma bixiyaan dadka alle agtiisa wixii yaalana laguma qaadan karo qaab xun saxaabiyada iska ilaali habaarka waalidka Umar bin Khattab radiyallahu anhu ayaa maalin wuxuu arkay nin oday ah oo gacanta naafo ka ah wuxuu weydiiyay waxa uga dhacay ninkii odayga ahaa ayaa wuxuu yiri xilligii jaahiliyada ayaa aabahay wuxuu igu habaaray naafonimo Umar bin Khattab radiyallahu anhu ayaa wuxuu yiri markaas aabe jaahil ah oo gaal ah haddii habaarkiisa uu sidan yahay aabe muslim ah ka waran saxaabiyada salaadu mar walba waxay ahayd mid ay xaggeeda u cararaan dadka wanaagsan Jurayj markii lagu been abuurtay wuxuu aaday salaada xaggeeda alle ayaana markaas ka badbaadiyay been abuurkii alle agtiisa ka dhigo meesha deganaanta aad ka helayso iyo dhufayskaaga adag haddii nolosha ay kugu adkaato wax sadaqayso haddii albaabada lagaa soo xirtana u orod dhanka ducada haddii arrimaha ay kugu adkaadaanna tuko salaada nebi yuunus calayhi salaam caloosha nibiriga wuxuu uga badbaaday tasbiix iyo istighfaar nebi muuse calayhi salaam fircoon iyo ciidankiisa wuxuu uga badbaaday kalsoonidu alle ku qabay nebi nuux calayhi salaam kuma uusan badbaadin oo keliya doontii alwaaxa ahayd ee doontaas horteed wuxuu ku badbaaday doontii tawxiidka nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam
iyo saaxiibkiis maalintii hijrada waxay ku badbaadeen tala saarasho iyo yaqiin ay ku qabeen rabbigood. Saxaabiyadda, dadka xumaanta sameeyo waa kuwo qalbigooda uu jiran yahay ee iska ilaali. Waxay rabaan qof walba iyaga camal inuu noqdo. Naagtii zaaniyadda ahayd waxaa dhibay oo keliya dhowrsanida Jurayj, markaasna waxay damacday inay fitnayso oo ayada camal u noqdo. Nebi Luut calayhi salaam qoomkiisa waxay ku yidhaahdeen, Luut iyo qoyskiisaba waddanka nooga saara, sababtoo ah waa dad isdahirow. Saxaabiyadda, Jurayj waxaa lagu eedeeyey zino isagoo dhowrsoon, balse qoomkiisa waxay rumaysteen naagtii zaaniyadda ahayd xitaa iyagoo og waxay tahay. Haddii laguu sheego been abuur qof kale laga sameeyey, ha sii faafinin, waayo waxaa noqonaysaa markaas fariinsida Ibliis ah. Dadka ceebahooda qofkii raadiyo, asagana Alle ayaa raadinayo ceebtiisa. Maryamo oo Nebi Ciise hooyadiis ah waxaa lagu sheegay zino. Nebi Muuse calayhi salaam isagana waxaa lagu sheegay dhulka inuu fasaadinayo. Nebigeena Muxamed ahna waxaa la yidhi waa beenlow iyo saaxir. Dadkaas qiimaha badan haddii aysan ka badbaadin been abuurka, sidee annagana u badbaadaynaa? Dadkaas qiimaha badan haddii aysan ka badbaadin been abuurka,